sida aad la socotaan adduunyada waxaa ka dhacay cudur halis ah oo cid walba saameeyey kaasoo dhammaan shucuubta kala duwan iyo qaranimada ama dowladaha kala duwano ay ku dadaaleen in laga gaashaanto. taas waxay dhalisay in muddo cayiman dalka Soomaaliya laga maanaco inay ka soo degaan diyaarado oo meelo kala duwan ka yimid nooc kastoo ay yihiin, taas oo looga taxadirayo in cudurkaas adduunyada dadkii halakeeyey inaanu soo gaarin dalka Soomaaliya. Ilaahay aan ka magan galnay, laakiin dadaalkaas ayaa la go'aanshay mar haddii marka la joojiyey isu socodkii diyaaradihii cargo ha ahaadaan ama diyaarad dad caadiya qaada ha noqoto laga maanacay. waxaa suuragal ah amaba ay tahay inay saamayso maciishadaha kala duwan ee dadweynaha. sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inaan ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqno inaanay raashinka qutul daruuriga ama maciishada nooc kasta oo ay tahay aan looga faa'iideysan dhibaatadaas jirta. laba shayba meeshaas waa ku jirtaa. ilaahay xaggii in rubisaar ama ganacsigaaga aad ku raadiso shilinkiiba shilin waa shay xaaraana, diintuna aysan raalli ka ahayn. talabaadne marka ay timaado suuq madow markaatana waa dembi laga galo qaranka Soomaaliyeed. suuq madow wax la yiraahdo waa shayga marka lacagtii loogu talagalay ama uu joogay laga kordhiyo iyadoo khayru sharci ah. sharciga waa diidan yahay, shuruucda dalka u taalo dhan waa ka soo horjeedaa, maadaama marka hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaaluhu uu xil saaran yahay la dagaalanka suuqa madow iyo sixir bararka iyo sarrifaadda lacagaha qalaad. waxaan u diyaarinay dhammaan suuqyada magaalada Muqdisho ciidan koontaroola la socda sixirku inaanu dadka ku kordhin, iyadoo ummadii ay iska tabcaan la iska yahay in lagu kordhiyo qutul daruurigii ay cunayeen. waa dhib inteeda la eg, mana loo dulqaadan karo, mana loo dulqaadan doono insha Allah taala. waxaa igu maqaala ah oo report la igu soo gaarsiiyey bahalkan yar ee alcoholka ah ee gacmaha lagu dhaqdo maalintii arrintaanu soo baxaysay $3 $4 laga siisan jiray suuqyada. maanta xal waxaa report la igu keenay in uu marayo $20 iyo dheeri. waxyaabaha aan ka digayna waa kuwaas. waxaan codsanaynaa ninkii damiir leh oo Soomaali ah oo u damqanaya dadkiisa maba ku kacayaba, laakiin qofkii iimaan la'aanu saamaysay ee arrintaa ku kaca waa la isku dabagelaa, maxkamada la isku geynaa, waa la dacweynayaa. maxkamadda u awoodda u leh arrinta dembiga lagu eedeynayo ayuuna qofkaas hortigi doonaa haddii Allah awoodda la ogolaado. sidaa daraaddeed waxaan codsanayaa oo aad iyo aad uga codsanayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo garan kara dadkoon Soomaaliyeed dhibaatada ay qabaan inaan lagu kordhin dadka looga faa'iideysan dhibaatada jirta. cudurka hadda laga cararayo iyo gaajadu labaduba waa cudur. sidaa daraaddeed inaan lagu kordhin, inaan faa'iido laga doonin, inaan lagu samaynin waxyaabo aan suuragal ahayn oon dadku samayn karin oo si ku noolaa karin. hooyooyinka, caruurta, dadka tabarta yar, dadka cid kasta, xataa tujaarka xaq uma laha in lagu kordhiyo. marka taas intaas ayay maraysaa. waxaa kaloon codsanayaa oon rabaa inaan uga faa'iideysto halkan guddoomiyeyaasha degmooyinka
iyo taliya saldhigyada waxaa ayagana ah waajib saaran inay hoggaanka ilaalinta canshuuraha oo arrinta u xil saaran intaas iyo in ka badan oo ayagana waajibaadu uu saaran yahay in degmooyinka marka lagu dadaalo kormeer tiro badan dukaamanka waxgada meesha suuqyada in dhammaan loo diro muxuu ahay ururada bulshada ee laga taxadiro inaan la samayn ummadda aan lagu qaaliyeyn qutul duruuriga taliyaasha saldhigyada sidoo kale inay ayaguna sidaasoo kale oo ciidamo u diraan oo suuqyada aad looga warqabo waxaan rajaynayaa in baaqaan uu cid kasta uu gaaro oo damiir lahu uu siduu yahay u qaadan doono haddii muxuu ahay leeska dhigatiro waa wax kale oo qofkii iska dhigatira oon awalba iimaan u saaxiib ahayn laguma muxuu ahay sii dayn karo ummadda tallaabo sharciyaana laga qaada haddii rabbiga awoodda la ogolaado intaas ayay muxuu ahay aheeday inaan baaqaas gaarsiino ayadoo madax badanoo hore uga hadashay haddana waxaan u sheegaynaa in dhammaan suuqyada ciidamo dharcad oo loogu talagalay oo xirfadleeyahu ay joogaan kaliyana ay dhowrayaan muxuu ahay ilaalinayaan inaan sixir barar cuntaduruuriga iyo wax kastaba aan lagu qaaliyeyn labada maalmood ee muxuu ahay dalka uu ku jiro standby oo loogu jiro in cudurkaas laga hortago aad iyo aad u mahadsantihiin taliya waxaan rabaa inuu haddii raashinka cuntaduruuriga sida bariiska iyo burka qaali ay noqdaan qof kasta uu fahmi karaa oo dadka bulshada wax kasta soo ogaanaya haddii ay dhacdo in ganacsatada baaqan aad u dirteen ay dhagaha ka furaystaan oo ay ka faa'iidaystaan dhibaatada jirto iyo cudurkaas laga digay dartiis ayadoo aan ognahay dekada inay shaqaynayso oo raashinka sidiisa usoo degaayo maxaa tallaabo ka qaadaysa maya waa caddahay aad iyo aad aad u mahadsantahay way caddahay ayadoo qofka lagu xadgudbin muwaadinka ah waxaa waajib muqadis ah marka lagu qabto inuu suuq madow ku gadaayo cuntadii waa la soo qabanayaa laanta dhexe ilaalinta canshuuraha la keenayaa maxkamadda awoodda u leh ayaana loo gudbinayaa iyadoo qodobkii sharciga ah ee lagu eedeynayo ku xadgudbay ku qoran tahay galdacwadeedka ayaa loo gudbinayaa maxkamadduna markaa tallaabo sharciga waafaqsan oo ku aadan falka uu ku xadgudbay ayaa haddii rabbiga awoodda la ogolaado maxkamad ku mutaysanaya qofkaas